السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channelkeena Baro English oo maxaydeen ku qaadano casharada Englishta si fudud oo aan wax dhibaato lahayn maanta bishu wax weeye 5 waa bisha afraad 2021 lesson-ka labaad ayaa waxa uu noqon doonaa mid si dhamaystiraya lesson-kii shalay baxay oo lesson 1 ahaa waxa aynu ka soo hadalnay waxa ahaayeen parties of the speech waxaan soo sheegnay inuu ku jiro noun waxaan kaloo soo sheegnay inuu ku jiro pronoun waxaan kaloo soo sheegnay inuu ku jiro verb waa ficilkii kaasoo magacii kaasina magacyaalkii kaasina waa ficilkii waxaan kaloo sheegaynaa in uu maanta ku jiro wax la yiraahdo adjective oo ah sifo waxaan kaloo sheegaynaa in uu ku jiro maanta adverb wax la yiraahdo adverb oo ah ficil kaabe amba sifa kaabe ama magaranaysa adverb kaasi kaabaya marka aduu kan baa bixiyay xoogaa yar adag laakiin adjective kaasi wax fudud buu noqon doonaa marka maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah taala saddexdaas ka hadlaynaa isla wada socod wanaagsan haddaad ku cusubtay channelka fadlan subscribe saar haddaad hore u aragtay fadlan like saar videoga dadka kalena la sii wadaag verb waxa weeyaan waa word that tells us what the subject performs waxa weeye waa kelmad waa word kelmadaasoo tells noo sheegta us inaga what wixii the subject qofka ficilka sameynaya ama waxa ficilka sameynaya performs uu qaban doono ama uu qabtaba waxa uu qofkaas qabto waxa weeye kelmadda noo sheegta word that tells us what the subject performs waa kelmad noo sheegta wixii uu qofka subject ay qabanayo qofka maxay ficilka sameynaya wixii uu qabto ayay sheegtaa verb tusaale ahaan Ahmed travels to US. Ahmed wuxuu safraa US every year. sanad kasta waxa uu safraa maxay US buu safraa marka travels taasi waxay noqonaysaa tashiigisa in uu safro maanta inuu ficilkaas sameeyo travels buu sheegaysa taasna noqonaysa verb سؤال كلام قاعدين كنا حسنا وهي أصلي وهي is working hard معناتها أصلي أدق بوش قينس مركا شقدي ما هذي واتن تاسان غونس سمحي verb cast تاسان غونس أصلي is working hard si adag bay u shaqeynaysaa waxaanu halkaa ku aragnaa maxay verbka waxaanu gulinaa waxa weeye waa adjective waxa weeye waa sifo sifadu waxay noqonaysaa markaa sifada maxay dee shay magaranaysaa lagu sheego ama masalan qof dee lagu sheego ama maxay wax kale dee lagu sifeeyo tusaale ahaan was a word that describes things zero easy zero degdeg astra maxay kelmadda magaranaysaa adjective maxay taariif uga bixi ama sananee qeex a word that describes things waa kelmad qeexda ashyaa ma fahamtay even حتى هذه names magacyo ay sii sheegi kartaa maarta waxyaaba la sameeyay sii sheegi kartaa laakiin waxa weeye waa kelmad markaa
doonaysa in sifo sii saarto shay sida masalan black dog ay madow amaba white house. white house kan maxay Mareykanka looga taliyo kale white house marka maxay halkaas maxay in oo xagga hore soo gashay maxay colorka ma oranka misalan dog black ay madow la English to asko aks waxa weeye waa madow ay cadaan guri marka maxay wax soo horeysiinaysaa colorka si aad uga dhigto adjective been oo marka maxay white taas iyo black taas okay tusaale kale samayn karnaa ah maxay tall boy inan dheer short girl inan gaaban markiin soo horeysa waana sheegaysaa maxay wiilkan ama gabadhan bay sheegaysaa wax ku saabsan oo ah dheeraan ama gaabnaan tall iyo short tall waa dheeraan shortna waa gaabnaan maaragta sidii sahlan wax socdaan adverb markaa wuxuu noqonayaa word that modifies verb بس يشرح ذا verb أي سي قيحدا يوم كنا سكر يكتب واحد وعد أما با verb كله أي سي قيحدا أما با adjective مرتا يعني أما verb وحكسي شيء أما verb وحكسي شيء أما adjective بيس وحكسي شيء و verb كحوي وكلمة داس سي قيحيسة verb oo ah ficil amaba maxay verb oo isla iyada ah amaba adjective oo aan hore uga soo hadalo ahaa sifadii tusaalaha hadeen qabano sida mesela tusaalahan Ahmed drove fastly. Ahmed waxa uu gaariga u kaxeeyay ama waxa uu waday fastly si degdeg ah harda Ahmed drove fastly si degdeg ayuu gaariga u kaxeeyay waayay waxaan ku taam مثلا asli works hardly سمعت si aad u adag bay u shaqeysaa سمعت marka ilaa hadda maxay ficil baan maxay marka wax ka sii sheegina yani ficil buu wax ka sheegaya kani waayay waxa jiray marka tusaalayaal badan oo maxay marka loo verb kaas oo kale maxay wax kaga sii sheegi karto ama adjective kale wax kaga sii sheegi karto marka dad yani idea aan ka qaadan hadda wax weeye inuu verb ku yahay kelmad modify karaysa verb ama verb ama adjective waayay mid baan maxay dib ugu qaadan karnaa iyagoo ma garanaysaa dee aad u sii garanaysaa sharxan laakiin hadda waxa aynu maxay haynaa ilaa hadda waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 marka ilaa 3 kale ilaa 4 kale inoo dhiman oo ah parts of the speech si 5 baan hadda gacanta ku haynaa noun pronoun verb adjective adverb waayay channelka mar labaad ha ilaabin inaad maxay like iyo subscribe saarto asxaabtaadana la wadaagto si uu noqdo channel weyn oo dadku ku xiran yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.